waxaa marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba ay focus garaynaysaa targetkeedu uu yahay hay'adda Idoor sida bulshada ay u garab istaagi lahayd qaybaheeda kala gedisan. hay-adda gargaarka horumarinta iyo kobcinta ee Idoor ayaa kaalin lixaad leh ka qaadatay samata bixinta qaar ka mid ah dadkii ay saamaynta xooggan ay ku yeelatay abaartii ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. meelaha ay gacanta ka geysatay samata bixinta gargaarka dhanka abaaraha waxaa ka mid ahaa gobollada dalka qaarkood. dadka ay abaartu saamaysay waxay hay-addu ay gaarsiisay qaybaha kala duwan ee raashinka iyadoo biyo dhaamin ay u samaysay dadkii ay abaarta saamaynta xooggan ay ku yeelatay. gobollada dhexe sida Shabeellaha Dhexe oo kaleeto markay abaaraha ay ka dhaceen sida tuulooyinka annagoo team ah ayaan baxnay waxaan tagnay jiinka wabiga kaleeto oo wabiga uu biyo la'aan uu ka dhacay oo biyihii ummadii dhan biyihii uu ka guray dadkii ay qodanayaan biyaha wabiga dhexdiisa ayagoo qodanayo runtii annaga aad ayaan uga calool xumaanay markaa aragnay baahida meeshaas ka jirto. sida tuulooyinka hoos yimaado maamul goboleedka Hirshabeelle ee khaasatan Jowhar sida Boodaale Jiilaale Maage ilaa iyo tuulooyin badan sida aeroboortka kaleeto Jowhar in badan waxaan sameynay si aan baahidooda u ogaano kadibna aan geersiino raashin iyo biyabo. بريس عبتام تمر سرير أنا كنت هيئة Idoor. sidoo kale hay-addu waxay caawinaad u samaysay qaar ka mid ah dadka bukaanada ah iyo kuwa danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho. waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan gacmaha isqabsano oo dad wax qabsan kara aan noqono keena dhibaataysan aan garab istaagno bulshadana la garab istaago wax alaala waxaad awoodiin ina bulshada dhibaataysan aan mar walbaba aad u istaagtaan. xaqiiqatan annaga dad iska dhaqanaanaha laakiin dad annaga naga liitaa jiro inaa ku xisaabtanno waa marka kaa dhibaataysan Ilaahay subxaanahu wa tacaala muusan u waanin arsaaqadiisa balse waa camal tus annagana lagu camal tusayo. marka insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba in ay gacan qabtaan isgarab istaagaan bulshadooda kan liitana ay gacan u fidiyaan. qaybinta cunooyinka gargaarka ay hay-addu waxay ka samaysay gobolka Banaadir, Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. qaar ka mid ah dadka la siiyay cunooyinkan gargaarka ayaa ka mahad celiyay deeqda cunada ee hay-addu ay siisay. waxaan dhahaa Khadiijo Nuur Cali wadankan waa ku cusbaa tarxiilahay maantana hay-addan aragnay raashinkaana siisay timir sokor baasto bur waa maasata iyo saliid casiir wax walba ku jiro ma sha Allah tabaaraka Allah waa helna alxamdulillah shukr baa caalamiin. xageed ka timid Sacuudi Carabiga tarxiilka ahay lix cunuga wataa raashinka waa aragna oo hay-addan oo keentay ma sha Allah bur bariis timir saliid wax walba sokorna waa aragna ma sha Allah khayr Allah si hay-addan soo gaarsiisay. intee ciyaal baad haystaadu ya macna daay waa macna caruurtay ma sha Allah 8 waay macna raashinka lagu siiyay maxay idin ka taraysaa wallahi waa iska barakaysiina ma sha Allah wax yar la wadaagay alxamdulillah hay-addan oo keentay khayr Allah siiyo. هنيئا لك يا أبا خالد حيث وفقك الله تبارك وتعالى أن دعمت لإخوانك المحتاجين في الصومال ونقول لك جزاك الله خيرا وكثر أمثالك ونبشرك ببشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. من هذه الأمهات ومن هذه السيدات معها أيتام
ومن هذه الأمهات لا تجد لأولادها ما تسد به رمق أولادها. في هذا الموسم من يشعر بشعور الإيمان أن هناك أناس يؤمنون بالله الواحد سبحانه وتعالى وهم محتاجون إلى سلة طعام، نقول لك هنيئا يا خالد، جزاك الله خيرا. أبو خالد جزاك الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء. waxaan halkan isugu yimid naafada gobolka Banaadir qayb ka mid ah oo dadka masaakiinta oo soonka loogu talagalay ay bixinaysay jamciyatul iidoor wanaaga ay samay jirtay hore waa ogeynay haddana Allah u jisay waxay maanta ay taakuleen oo soonka loogu talagalay ay siisay dad masaakiina oo degan degmada Boondheere anigoo u mahad celinayo waxaan mahad weyn uga haynaa gargaarka ay weligeed samay jirtay haddana ay samayso إلهي ها وجسي. وحن أمهات عليها هي أد أو يدور أو نسوق جالس الصديق ذهن ما ركتي أو أفرنته وأكون ماتسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وليلى أحمد عبد محمود جمعية يدور أفرنته نسوق جالس ويكون ماتسن تهاي إن بدن أينا نقعن قبضتي أو حواهي أو بيرجع نوجمه الرئيس وحاوي وأنا كمات سينهين مستنك قيام الله وصاره أنا كان كوي على الفضاء الله نقدره وبلا توفيق. الحمد لله رب العالمين. لعبة ما هذا السكالة جمعية يدور ونسوق سيسي دقيقة شرفت على حاوي رمضان كريم يقول تلاقي شيء وما تسين ولا عليهن مسلمين تا جزاك الله خير. يعدو حسي توس وجوابتها إن سيدا بلاها بركيسان رمضان كو كلايته in ay anfuriso ilaa iyo boqolaal qoys oo Soomaaliyeed runtii anfurintaas oo markaas ka kooban sida burki, bariiski, sokorta, saliidda, timirta, baastada, caanahi iyo cabitaanadii. فهنيئا لكم جميعا يا معشر المسلمين، خاصة لك يا أبا خالد، حيث وفقك الله تبارك وتعالى أن تذبح لأهلك في الصومال هذه الأغنام بحمد الله عز وجل، توفيق وفضل من الله عز وجل. هذه الأغنام وفقك الله عز وجل أن تذبح وتضحي لأهلك في الصومال. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونقول لك أبدلك الله خيرا مما أنفقت، واعلم أن الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. dabaaldegii munaasabadda ciidul adxa ayay hay-adda gargaarka horumarinta iyo kobcinta ee iidoor waxay hilibka udxiyada ah ay u qaybisay dadka masaakiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho si ay munaasabadda ciidda uga faa'iidaystaan. runtii baahiyaha way badan yihiin. waxaa mar koowaad iyo marka labaadba aan taarget garaysanaynaa in bulshada Soomaaliyeed aysan ku halaynin dad kaleete, sababtoo ah dadka way wada dhibaataysan yihiin, dad baahana ku jiro. Soomaalida maanta islama wada dhareegsana. waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan gacmaha isqabsano oo dad wax qabsan kara aan noqono, keena dhibaataysan aan garab istaagno, bulshadana la garab istaago. wax alaala waxaad awoodiin inaad bulshada dhibaataysan aan mar walbaba aad u istaagtaan.